madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maalintii labaad booqasho rasmi ah ku jooga dalka Algeria ayaa soo dhaweyn heerkeedu sarreeyay waxa lagu sameeyay qasriga dalkaasi looga arrimiyo Al Muradiya waxaana halkaasi ku qaabilay madaxweynaha dalkaasi Algeria Abdelmajid Tebboune munaasabada soo dhaweynta ayaa lagu maamusay calaamadaha labada dal iyadana cutubyo ka tirsan ciidamada dalkaasi ay salaan sharaf siiyeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kadib kulamo gaar ah oo la qaatay dhigiisa Abdelmajid Tebboune sidoo kale labada madaxweyne ayaa si wada jira waxay u gudoomiyeen wada hadallo ballaaran oo ay ka qayb galeen xubnaha labada dal waxaana arrimaha laga wada hadlay kamid ah waxbarashada caafimaadka dhaqanka iyo sidoo kale arrimaha diblomaasiyadda madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhigiisa Abdelmajid Tebboune iyo shacabka Algeria uga mahadceliyay soo dhaweyntii diiraneed iyo sidoo kale qaabilaadii wanaagsaneed ee u sameeyeen asaga iyo wafdigiisa dhankiisa Abdelmajid Tebboune ayaa ku amaanay dawladda Soomaaliya horumarka iyo sidoo kale dadaalka joogtada ah ay ku xoojinayso xasiloonida dib u dhiska Soomaaliya iyo sidoo kale la dagaalanka argagixisada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waayii ugu dambeeyay waxa uu safarada isdaba jooga ku marayay wadamada caalamka taasoo ku doonayay inuu ku wanaajiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ay la leedahay wadamada caalamka